السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتك kusoo dhawaada muuqaal cusub halka igala socotaan waa Fahima Channel soo dhawaada ayaa idin leeyahay gabar baa ila soo wadaagtay qiso runtii aad iyo aad u yaab badan waxayna ku bilaabanaysaa qisadeeda sida tan gabadhan waxay tiri waxaa jirta gabar walaashay oo iga weyniiday markaa gabadhaasi wiil bay isjeclaadeen jaceylkoodii kadibna reerka ayay u keentay gabadhiina waa nagala soo doontay ayay tiri wiilkiina waa loo guuriyay markaa walaashaydu waxay gashay guri runtii ay ayadu ku faraxsaneeday muddo kadib ninkii waxay u dhashay 4 ciyaal ah markaas ninku waxa uu ahaa askari markaas ciidamada Soomaaliya ku jira walaashay iyo ay ninkeeda aad bay isugu faraxsanaayeen waayo qeylidooda iyo buuqooda laguma soo bixin sidoo kale ayaduna ma aheenin markaasi qof ninka ama reerka gabadheena ee gasha ka soo sheegata runtii noloshooda nolol qurux badan ayay aheeday sidaas wixii ay ahaataba walaasheeda waxay umushay canugeedii 5aad kadib hooyadeeda ayay soo wacday waxa aynu u sheegtay in markaas ay u baahan tahay gabar caawiso hooyaday waxay ugu tiri waxaan ka rabaa inaa aadid walaashaada si ay ula joogtid xilliga markaas ay umusha ku jirto iyo bilaha ugu horeeya hooyaday ayaan ka ogolaaday ayay tiri waxaan soo aaday halkii ay deganeeda walaashay markaan u imaaday runtii nolol aad u qurux badan ayay ku jirta ayay tiri jawi aan laga sheekeyn karin ayay ku jirtay waxaa anigu ugu tagay walaasheed inaan soo booqdo isla markaasna aan la joogo 2 bilood ee ugu horeysay umusha ay ku jirto sida caadiga Soomaalida dhaqankeeda uu ahaa gabadhu marka ay umusho waxaa loo raadiyaa gabar kale si ay u caawiso markaas kadib waxay tiri guriga walaashay ayaa imaaday waxaan waqti wala qaadanayay ayay tiri walaashay iyo sidoo kale ciyaalkeedii waa uu joogo ninka walaashay qabo oo markaas askari ahaa sida caadiga maalintii oo dhan waa uu maqnaan jiray ayay tiri ilaa maalinta Jimcada ayuu guriga joogay maalmaha kalena waa uu maqnaa kadib waxay dhahday anigoo walaasheeda bil ku dhawaad la joogo ayaa waxaa dhacday in ninkii dumaashigay ahaa ee walaashayda qabay ee 5 ciyaal ay u dhashay inuu igu bilowdo sheeko runtii aanan jeclaysanin sheekadaas oo maalintii ugu horeysay hadallo runtii aan u fahmay in uu qofkaani qof ma aragtay aan iga xishoonin uu yahay maalintii ugu horeysay runtii hadallo aan jeclaysan ayuu igula hadlay ayay tiri kadibna waxaan dhahay maxaa kugu dhacay inaad kaftamayso ayaa moodayay laakiin sheekadiisa kaftan ma aheene way ka duwaneeday kadib markii aan isdhaafsana hadallo yaryar oo laakiin aan badnayn anigana aan dareemay in dumaashigay wax ka qaldan yihiin ayaa dhowr beri kadib haddana wuxuu biloobay in uu si caadiya oo aan bareer ahayn oo markaasi oo bareer ah oo igu sheegto in uu i jecel yahay ama markaas xiriir oo iga doonayo in aan la yeeshto runtii aad baan u yaabay waan fahmi waayay ayay tiri kadibna waan ka aamusay oo waxaan sameeyay waan cararay qolkayga iska gal ayay tiri waxaanan ka yaabay ninka xaaska uu ah walaashayda sidoo aniga jacayl igu soo bandhiga karo laakiin nafteeda ayaan waxa u sheegay in markaas ninkaani uu iska kaftamayo oo sheekadaani aysan dhab ka ahayn waa la jooga ayay tiri kadib maalintii xigtay sidii si lamid ayuu ila hadlay waxa uu igu yiri adiga ayaan kula hadlay waxaan rabaa inaan xiriir kula sameeyo ilaa hadda wax jawaab ay ma siinin jawaab ayaan ka sugayay ee sidee xaalkaagu yahay waxaan dhahay ayay tiri anigu iyo adigu sidee iskula jaan qaadi karnaa adiga oo walaashayda qaba maalintii hore waxaan ku moodayay in aad markaasi kaftamaysid marka sheekadaadu kaftan ma ahayn miya maya ayuu igu dhahay ayay tiri sheekadeedu kaftan ma aha waana iga dhab waxaana rabaa inaan xiriir kula wadaago kadibna aan isguursan ee maxaa ka leedahay guur markaas kadib waa naxay ayay tiri waana yaabay waxaan ku dhahay sheekadan sheeko runtii aan fahmi kara ma aha laakiin waan soo fikirayaa kadib maalintii waxay dhahday waan cararay dumaashigay markii uu guriga ka tagay walaashayda ayaan u galay qolkeedii waxaan u sheegay arinta na dhaxmarta aniga iyo dumaashigay kadibna gabadhii walaashayda way yaabtay waxa ayna tiri sidee ku dhici kartaa ninkeyga inuu kula hadlo isla markaasna uu xiriir jacayl iyo sheeko aan loo joogin uu ku soo bandhigto kadib waxay dhahday walaashayda markii aan ogeysiiyay waxay ugu tiri waxba ha bixin guriga hooyana ha aadin ila joog sidaad ila joogtay marka aniga ayaa ninkeyga la hadli doono kadibna weydiin doona waxa uu kala jeedo sheekadan marka uu dumaashigayga imaaday waxaan ku soo baxay ayay tiri anigoo qolkayga ku jira
walaashay iyo ninkeedii oo qoorta markaas iskula jira oo markaas iskula qaylinayo sidee walaashayda xiriir ugu soo bandhigatay iyo anigu sidaas ma sameynin. Kadib ninkii waa uu inkiray ayay tiri. Markuu inkiray kadib waa la i wacay, walaashaydana waxaan u sheegay in arrintan ay tahay arrin jirta, isla markaasna oo ninka walaashay qabo aniga ii soo bandhigtay xiriir iyo sheekooyin aan markaas caqliga galaynin. Ninkii waa uu inkiray, waa uuna baxay. Dhowr maalmood kadib waxaa dhacday ayay tiri, ninkii ayaa waxay tiri ila hadlay, waxa uuna igu yiri maxay tahay sababta ugu sheegta walaashaada. Walaashaadu waa dumar ayuu yiri, adna dumar ayaa tahay. Markaa labadiina waa idin guursan karaa ama mid ayaan furi doonaa. Sidee ku dhacda aniga inaad aniga walaashaada ii sheegto isla markaasna ee anigii isii qabsato, weliba arrin adiga aan na dhex maray. Waxaan ku dhahay ayay tiri wax caqliga galaynin ayaad ii sheegtay. Marka adiga isma guursan karno, xiriirna ma wadaagi karno. Sidaas ayaan ugu sheegay walaashayda si arrinkan ay wax ugu qabato ama inaan guriga ka tago ayay noqonaysaa ayay tiri. Kadib ninkii wuxuu igu dhahay ayay tiri, haddii arrinkaani mar kale aad u sheegto walaashaada iyo haddii aad diiddo aniga go'aankii iga soo baxa oo ahaa inaan wada sheekeysano isla markaasna xiriir aan sameysano kadibna aan isguursano, haddii aad diidid ama aad ka hor imaadid ogow waan ku dili doonaa ayuu dhahay. Markaasina ninku waxa uu ahaa nin askariya oo markuu rabana guriga isagoo qoray wata ayuu imaan jiray, marmarka qaarna asaga oo caadiya oo waaba ogaa ninkan inuu yahay nin markaas askariya. Kadib waxay dhahday waa naxay, waan jareeyay, waana aamini waay, hoos ayaan fiiriyay ayay tiri. Naxtinta aan darteed ayaa waxay tiri ilin igu soo istaagtay. Kadib waxaan go'aansaday inaan aado gurigii hooyaday. Laakiin kadib waxay dhahday walaashayda ayaan u sheegay oo ku dhahay abaayo ninkaagii sheekadii hore waa laga soo gudbay. Hadda waxa ay taagan tahay inuu ii hanjabo isla markaasna uu dhaho haddii aad diidid xiriirkeena ama aad walaashaada u sheegto wixii hadalna dhex maray waan ku dili doonaa ayuu yiri. Marka abaayo gurigan ma sii joogi karo. Gabadhii walaashay ahayd waxay igu tiri ninkayga anigu waa taan la sheekaystay, waxuu ii sheegana ma jirinin. Marka adiga duu kuu hanjabay anigana uu yiri waxba halkaani ma yaalaan oo wax xiriir aan leenahay ma jiraan, ma garanayo qof aan aamino ayay tiri. Markaas kadib waxay dhahday walaashaydii iyo ninkeeda ayaa sidaas si lamid isdagaaleen. Maalintii dambe dagaalkoodii waa lagu soo baxay ayay tiri, ilaa reerkeenii ayuu arrinkeeni gaaray. Waxaana caddaatay ninkii inuu markaas aniga xiriir ii soo bandhigtay ayay tiri, sidoo kalena walaashayda uu qabo oo ay 5 ciyaal u hayso. Walaashay waxay tiri waxay aniga iyo ayada aan go'aansanay ayay tiri inaan gurigii ka tagno isla markaasna aan aadno gurigii hooyaday. Annagoo dhan ayaa baxna ayay tiri, ciyaalkii iyo walaashayda iyo aniga waxaana aadno gurigii hooyaday intii xal laga helayo arrinkaasi. Kadib waxay dhahday intaas laguma ekeysane, ninkii ayaa waxay tiri walaashayda soo wacaya, anigana isoo wacaya, wuxuuna noogu hanjabayaa maalin maalmaha ka mid ah nafta inuu dhaafin doono, walaashaydana uu nafta dhaafin doono. Taas uu markaasi diidaya walaashay inay ogaato xiriirkan uu ii soo bandhigtay. Anigana uu diidayay inaan arrinkan banaanka u bixiyo oo waxa uu rabo inaan si hoos u sheekeysano isla markaasna uu guurkii uu sheegay aan ka aqbalo. Sidaas ayuu ahaa sidii uu rabay, laakiin maysan dhicin oo afka ayaan furtay. Walaashayda ayaan la wadaagay arrinkii ila soo gudboonaaday. Marka hadda waxay tiri cabsi ayaan ku noolnahay. Hooyadeena oo ayaan la joognaa. Ciyaalkeedii ayay wadataa walaashay. Arrinkoodii weli wax xal ah lagama gaarin. Laakiin waxay dhahday aad iyo aad baan u baqaynaa. Ninku inuu guriga nagu soo weeraro xataa way dhici kartaa maadaama uu yahay nin askariya. Nin sidiisana hadduu xanaaqo ama uu markaas yahay nin qoray wata, wax kasta ayaa ka suurtagala ayay tiri. Marka hadda waxay dhahday cabsi fara badan ayaa nala soo gudboonaatay. Ma naqaana ayay tiri waxaan sameyno. Hadda waxaan ku fikirayaa aniga ayay tiri inaan ka tago walaashay iyo ciyaalkeedii iyo hooyaday oo aan tahriibo. Maxaa igula talin lahaydin ayay tiri. Marka talo ayaan idinka rabaa. Talada ayaa iga wareersan ayay tiri. Weligay kuma fikirin inaan tahriibo ama aan guriga hooyaday ka tago. Laakiin arrin aanan runtii maleysan karin ayaa ila soo gudboonaatay. Marka maxaan ka yeelaa ayay tiri. Waad mahadsantihiin asxaabta muuqaalkan daawo doonto. Waxaa idinkaga baahanaana talo gabadhaasi aad la soo talisaan. Qoraaladiina iyo muuqaalka iyo sidoo kaleetana way arki doontaa.
mihiina kala duwan ayaan sugi doonaa waa mahadsantihiin muuqaalkan muuqaal ka duwan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo